Viruska Corona oo ah mid ka mid ah fayrasyadii ugu saameynta weynaa ee dunidan ayaa waxa uu ka soo baahay waddanka China isagoo gaaray dawlado fara badan. Sida ay sheegayso tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press, fayraskan ayaa gaaray 13 dawladood oo badankoodu ku yaala qaaradda Aasiya, kuwaas oo daris la ah waddanka China. waxaa ka mid ah waddanka Japan oo laga soo sheegay 20 kiis, waddanka Thailand oo laga soo sheegay 19 kiis, Singapore oo laga soo sheegay 18 kiis, Kuuriyada Koonfureedna 16 kiis, halka waddanka Taiwan laga soo sheegay 10 kiis oo cudurka coronavirus ah. Malaysia waxaa laga soo sheegay 10 kiis, Vietnam 9 kiis, India 3 kiis. Intaa oo lagu daray wadamada Philippines, Nepal, Sri Lanka iyo Cambodia oo laga soo sheegay min 1 kiis. Imaaraadka Carabtuna oo ku yaala qaaradda Aasiya waxa ay sheegeen inay 5 xaaladood la tacaalayaan. Fayraskan ayaa gaaray 9 dawladood oo Yurub ah. Jarmalka waxaa laga soo sheegay 12 kiis, Faransiiskana 6 kiis. waxaa lagu daray sidoo kaleeto Ruushka, Talyaaniga iyo Ingiriiska oo min 2 ah. sidoo kaleeto wadamada Sweden, Spain, Finland iyo Belgium-kana waa min 1 kiis. halka Mareykankana laga soo sheegay 11 xaaladood, Canada-na 4 xaaladood. sidoo kale Australia ayaa iyana laga soo sheegay 7 waxyeelo.